meel meed ku jir maxaa loo bixinaa hadda waxa loo yahay meedkiiba la canshuuraab warqad soo jirta loo yahay dadkii wasiirka arrimaha dibadda loo magacaabo Sheekh Maxamuud xal ma ahan ee waa xaalka xilligan xusuusnow halkan waa xamar xaalka xilli kasta ayuu isbedeli karaa dadkii noola ka baxsan waay meedkii loo daba tagoyaa quburaha iskuul buluusiya saaka dadkii ay dadkoodu ku aasnaayeen waa ay u kallaheen waxaana ay mid walba doonayaan inay ka soo saartaan meedadkii halkaas ay ku aasteen qaarkood 20 sano ka hor 15 sano ka hor 10 sano ka hor 5 sano ka hor ilaa iyo maalmo ka hor halkaas waxaa maalinimadii shalay tegey qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed maamulka gobolka Banaadir taliska booliiska gobolka iyo sidoo kale laamaha ammaanka guud ahaan dalka wasiirka gaashaandhigga ayaa qayb ka ahaa kuwaasi oo guud ahaanba ummadda halkaasi ku aasan dadkooda u sheegay inay muddo 10 maalmood gudahooda kala soo baxaan guud ahaan waxaa xusuus hor leh gelaya oo weliba dadkoodii ay cafiyeen mar kale qulubtooda ay dib u xusuusanaysaa wiilkii halkaas sanado ka hor ama maalmo ka hor awoowihiis ayeeyadiis hooyadiis ama aabihiis ku soo aasay halka awoowe aabe adeer habaryar ama eedo oo wiilkeeda halkaas ku soo aasay haddaba maxaa xilligan ku soo aadiyey in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay u baahato dhul qubuura ah oo ay ku aasan yihiin dad Soomaaliyeed oo muslimiin ah qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaanu su'aashan hor dhignay iyaga oo waliba siyaabooyin kala duwan aragtidooda uga hadlay wallahi horta wax fiican maan in qabuur 30 sano iyo ka badan oo duugan maanta in la faago sababtoo ah dhul wuu buucaa dhul meelaan ooda buucaa marka waxaan dhilahay in laga wareejiyo qabuuraha la iska dhaafo dad oo mar hore dhintay in maanta dib loo qodaadana oo la yiraahdo dhul loo baahan yahay wax fiican maan marka waxaan kula talinayaa inay iska daayaan dhul waa badan yahay dhul meelahaas ay ka raadsadaan Sheekh Maxamuud dalka markuu doorasho ku soo galay wuxuu dhahay Soomaaliya heshiisa dunida la heshiisa Soomaalida heshiiseed maanta ma jirto Sheekh Maxamuud wuxuu noqday wasiirka arrimaha dibadda oo iska dhaafaa wadanka oo ka taga mar walba marka waxaan dhilahay wasiirka arrimaha dibadda loo magacaabo Sheekh Maxamuud ilaan dalkan waxba ka maahay walaa xeero hadda maanta oo laga dhisay qabuur oo 30 sano ka badan duugan maanta la qoday oo la xeero laga dhisay waxaan u arkaa wax qalad aad waa ka jirto maxaa bad xeeb inta leey ku taala ilaa ay jasiiro xeeb waa ma ka dhisata xaq meel meed ku jir maxaa loo bixinaa hadda waxa loo yahay meedkiiba la canshuuraab warqad soo jirta loo yahay dadkii marka waxaa mashruuc socdo waa inay oo baasha inta ku soo gaarin ka faa'iideyso waan faan hadda ni brimid kala imaanay saas u dhigi doonaasi marka faraha iska qaada leeyahay inay meed waaye baaq ugu dambeeyo adeeraysa kaliya wallahi waxa diraa inay Soomaalidan god hadaa gishid way ka soo daba galaa ma faan dadkii noola ka baxsan waay meedkii loo daba tagoyaa waxa leeyahay faraha iska qaada inay dawladda Hungariga meel kale ka raasatay macna dhulku waa weyn yahay badda xeebta way weyn tahay ilaa ay jasiiro xeeb waay ciidamo cirka sheegay kuwa oo badda hadii la sameeyo istixtaameel loo haayo ma faan kistaan yariista oo labadan taaka oo ninka markuu adduunka joogo markuu dhinto 2 mitir dhulku kaliya ma faan 2 mitir ayaa looga soo baxsooyaa dad ahlu qabuura meel uu ku duugan yahay dawladdu dadka amba dhintay amba nool ayda mas'uul ka ah marka inay wixii deganay oo shacab oo meel deganaana ay barakaciso wixii ahlu qabuurana ay barakaciso waxaan aaminsanahay hadalkaasu hadduu dawladda asu ka soo baxay barceeb ay ku tahay hore waxaan anaga u maqlaynay dhul dawladdu ay leedahay oo dad shacab laga kiciyay oo dawladdu ay dadka sii gadatay ganacsato ah taasa abad anaga madaxayna ka guuxayso oo dhaliil weyn dawladda Xasan Sheekh Maxamuud aan ka aaminsanayna marka haday tan ay ku darataaho waxaan leenahay warkaasu dawladdu waxay ku tahay barceeb ay ku tahay laakiin in lacag hadana la sii saaray lagu dhibaateeyo hadana qarash bixi la yiraahdo taas waa dheeri halaga naqdaan aaminsanahay hadana la dhaafi karin taas aaba ka sii dheeri Umar Guux magaalada Muqdisho